maxkamad ku taala ismaamulka Meru oo ka tirsan dalka Kenya ayaa xukun ku riday lamaane. Xukunkaasi oo xabsi daa'im kadib markii lagu helay lamaanahaasi dambi kala gudbinta daroogada nooca xashiishka loo yaqaano. Garsooraha sare ee maxkamadda Meru, Thomas Muraguri Mwangi, ayaa xukuumadaasi ku kala riday lamaanaha lagu kala magacaabo James Mutura iyo xaaskiisa Farida Karimi. lamaanahaasi ayaa la soo xiray bishii 11aad ee sanadku markuu ahaa 2018 iyaga iyo saddex qof oo kale ayaa dib maxkamaddu u fasaxday markii lagu waayay wax dambi waxaa lagu eedeeyay inay si wada jir u kala gudbinayeen maandooriyaha nooca xashiishka loo yaqaano oo culeyskiisu uu ahaa 103 kilogram isla markaasna qiimo ahaan lagu sheegay lacag gaaraysa 3.9 milyan oo shilinka dalka marka laga soo tago xukunka xabsi daa'inka waxay sidoo kale lamaanahaasi maxkamadda u soo bandhigtay xabsi 5 sano ama bixinta ganaax lacageed oo gaaraysa 4.6 milyan oo shilinka dalka Kenya maadaama ay siteen agab loo adeegsado saameynta daroogada taasi oo lid ku xeerarka wadanka Kenya ka jira. ugu dambeyntii qareenadii difaaca ee lamaanahaasi ayaa sheegay in go'aanka maxkamadda uu yahay mid adag oo xad dhaaf marka loo eego cadeymaha la horgeeyay garsooraha. Abdirahmaan Atore, 5TV, Nairobi.